السلام ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga kusoo dhawaada lecturedeena taxana ahaa maadada low vision ugu horeyntii waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula caam wa antum bikheer taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal ilaahay naga aqbalo maalmahan lecturedeena wuxuu noogu soo daahay arrimaha ciidii iyo diyaar garowgii waxyaabaha ku guda jirna awgeed hadduu ilaahay raado maanta waxaan ka hadli doonaa lecturedeena qeybihii oo waxaan soo gaarnay dhamaatinka ayaan soo gaarnay hadduu ilaahay raado 5 lecture iyo 6 lecture camal noo harsanaan doona intaan inta ka dhiman hadduu ilaahay raado waxaan ka hadlaynaa low vision idea waxaa la dhahay hore waan kaga soo hadalnay low vision ideas oo bukaanku u baahan yahay maanta hadduu ilaahay raado waxaan ka hadli doonaa low vision ideas wax loo yaqaano sidoo kale types of magnification inta noocee maanta loo kala qaaday weyneysada magnification of low vision therapy-ga oo ideaska nooc ka mid ah ayaa maanta baran doonaa ugu horeyntii low vision idea maxaa lahaa haddaan definition u sameyno low vision oo aragyo yaraado idea wax qof la siinayo muxuu u baahnaana marka wuxuu u baahnaana ideaskaas type of management wuxuu u baahnaana mid ugu horeysa optical sidoo kale wuxuu kaloo u baahnaana non optical wax loo yaqaano sidoo kale wuxuu kaloo u baahnaana electronic devices used ay u baahnaana sidoo kale wuxuu kaloo si uu improvement ugu sameeyo functional vision qaabka isha uu shaqeynayso in the vision permanentiga the patientiga half qaba permanent visual impairment patientida half qaba permanent visual impairment si guud markii laga hadlayo visual ideas waxaa loo yaqaanaa saddexdan qayb loo yaqaanaa in bukaanka u sameyno optical management u sameyno optical ideas u sameyno sidoo kale non optical ideas u sameyno mid saddexaadna waxaa waaye electronic devices common diseaseska cudurada hore ugu soo sheekeen waxyaabaha cause gareey marnabada kusoo laabanayna tusaale ahaan anaga usoo qaadanayna 4 cudur waa age macular degeneration AMD sidoo kale ARMD sidoo kale waxaa kaloo ka hadlaynaa diabetic retinopathy DR sidoo kale glaucoma iyo retinitis pigmentosa classification of low vision ideas it will be for 3 types ideas markii loo kala qaadayo waxaa loo kala qaadaa inuu yahay optical ideas sidoo kale non optical ideas iyo electronic ideas saddexdaas qayb ayaa u kala qaadinaa haddaa ku hor bilaabno optical idea maxaa loo yaqaanaa optical idea naftirkeedaasi kala qaadin divide waxaa loo kala qaybiyaa laba qayb mid ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa near vision ideas mid labaadna waxaa loo yaqaanaa distance vision ideas magnificationka markii laga hadlayo waxyaabaha importantiga ah afartan waxaa muhiim u ah relative size of magnification RSM inuu leeyahay oo ah size of magnificationkiisa inuu relative u yahay aad u yahay sidoo kale relative distance magnification inuu yahay sizeka inuu u ahay magnification inuu noo sameynayo kana waxaa waa distance inuu noogu sameynayo magnification sidoo kale angular magnification iyo electronic magnification afartaas nooc ayaa classification loo kala qaadaa magnificationska marka laga hadlayo marka waxaa loo adeegsadaa marka intaan nooc baa loo adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa reading oo loo adeegsadaa inaa wax ku qornaa loo adeegsadaa midda labaad waxaa kaloo adeegsanaa writing ayaa adeegsanaa wax ku qornaa ku adeegsanaa swimming ayaa u isticmaalna sidoo kale mobile phone use ayaa u isticmaalna intaas nooc ayaa u isticmaalina marka laga hadlayo marka high plus spectacleska laba nooc u kala qaadina A/B magnificationska high plus spectral microscope this microscope waa part of magnification way inta badan wuxuu u dhexeeyaa 24 ilaa 20 degree of magnification ayuu leeyahay ama diopter power ayuu u dhexeeyaa sidoo kale waxaa hands free way sidoo kale wild fieldigiisa hareeraha qofku intuu ka arkayo to combination markii compare loo sameeyo magnificationka waa fiican yahay laakiin waxaa very short walking distance way shortigiisa walking distance aad ayuu yahay walking distance waa 1 divided by markii formula laga hadlayo 1 divided by loo qaybiyo distance way example magnification time haddii lagu siiyo diopter bukaan qaba 10 diopter then haddii lagu dhaho walking distance 10 centimeter uu yahay
inta badan marka waxay noqonaysaa walking distancegiisa 10 centimeter. soo marka bukaankii markii laga hadlaayona distancega normal bukaanada markii reading laga hadlaayo waxaa waa 40 centimeter waay. bukaanadana qaarna waxaa waay 33 ilaa 38 centimeter. saddexdaas walking distance oo near ayaa jiro. laakiin markii laga hadlayo near vision oo bukaanada low vision ah so different aad ayuu ugu gedisaya. totally waxaa waaye and we can take any percentage, even sometimes waxaa ka qaadan karnaa 8%, 8 centimeter, 10 centimeter oo walking near distance walking ah intaas oo isticmaali karna. it's not shardi ma aha mashiinka inaan dhigno 40 centimeter. sidoo kale nooca labaad ee loo yaqaan waxaa loo yaqaanaa handy magnification. handy magnification waa portable waay, sidoo kale easy to use waay, sidoo kale requires waxaa u baahnaan instead of hand ay u baahnaan. magnification typekiisa waxaa waay inta badan 2x ama 4x ilaa 10x intaas oo u dhexeeya. sidoo kale standard magnification waa good for the elder way, stabilized stable way oo markii reading lagu sameynayo waa wax taagan oo stable way. then built for illumination, inta badan wuxuu leeyahay illumination, less portable way, aad ayuu u yaryahay portablekiisa. nooca labaad waxaa kasoo hadalna distance. nooca labaad waxaan ka hadli doonaa waxaa kasoo hadalna near, hadda waxaan ka hadli doonaa distance magnification. distance magnification inta badan waxaa loo isticmaalaa intaan xaalada loo isticmaalaa. waxaa isticmaalayna walking distance TV watching, inaad tvda lagu daawado, reading waxyaabaha naga fog oo markii la aqrinayo sabuurada waxyaabaha loo isticmaalayna. sidoo kale classroom passport, classroom board qofka sabuurada iyo waxyaaba marka wax ka aqrinaa glasska, bus numbers waxyaabahaas dhan loo adeegsadaa. distancega waxaa ugu horeeya telescope-ka waa part of type ka mid waxaa waaye magnification. distancega waxaa loo yaqaanaa angular telescope formuladiisa waxaa f divided by of f projected divided by ocular. inta badan wuxuu noqonaa powerkiisa 2x ilaa 8x oo u dhexeeya. types of telescope-ka monocular telescope ayaa jira oo light leh, cheaper portable used loo adeegsado for sports. intaas xaalad buu leeyahay, waa light, sidoo kale cheaper, portable and used for sports. common typeskiisa waxaa waaye hard handle monocular, sidoo kale spectral motive monocular iyo clip of telescope. intaas loo adeegsada. la waxaa binocular telescope. binocular marka laga soo tago, binocular wuxuu leeyahay depth prescription uu leeyahay, more natural vision waay, sidoo kale heavier waay, expensive na waay. labadu wuxuu ku fiican yahay waa more natural vision waay, depthigiisana aad ayuu fiican yahay. laakiin markii laga hadlaayo heavy, markii laga hadlaayo culayskiisa aad uu culus yahay, heavy waay. sidoo kale expensive aadna u qaaliya. use waxaa loo adeegsadaa TV watching, waxyaabaha markii la daawanayo, treated iyo classroom. intaas baa loo adeegsadaa. si good telescope-ka laba nooc loo sii kala qaada. mid waxaa loo yaqaanaa Glerian, midna waxaa loo yaqaanaa Keplerian. labada nooc ayaa loo kala qaada. Glerian 1609 la soo saaray. this type waxaa la soo saaray 1609 la soo saaray. kanna waxaa la soo saaray 1611 la soo saaray. labadu maxay kala duwan, waxyaabo badan kala duwan. midkan short waay, maadaama 1909 la soo saaray short waay, light waay, magnification kiisa lower magnification uu leeyahay ilaa low ilaa 4 u dhexeeya. sidoo kale narrow field waay, hareerihiisan aad ayuu yaryahay. according to the Keplerian, high magnification waay, sidoo kale wide waay, longer and heavy waay, culaysaas loo leeyahay. required waxaa u baahnaan prism for the image correction. waxaa jira marka biooptic telescope waa spectral mounted telescope placed waxaa loo dhigaa serious used waxaa loo driving in some case countryga distance sportska. sidoo kale waxaa kaloo loo adeegsadaa patientiga luki markay fiirinayaan
the color of the lensigeeda, depth of the heat use telescope. intaas baa loo adeegsadaa. Bioptic nooc ka mid ah intaa nooc oo telescope, Galilean iyo Keplerian iyo bioptic telescope, intaas nooc way jiraan. intaas waa idea. telescope-kaas ka soo sheekeed, magnification-iskaas, labadaas nooc waxaas dhan ka soo hadalnay waa idea. qofka inaan siino magnification power oo wax ku akhristo distance iyo near. markii laga hadlayo non optical low vision ideas, intaa nooca loo rabaa waa non optical waay. kii haddee optical qofku wuxuu ku arkay kan optical wax kuba arkay wixii loo soo weynina kan wax kuba arkay oo maxaa ay good illumination wix inuu iftiin badan loo sii salaad wuxuu rabaa inuu aqriyo warqad oo reading ah oo la baro ku qoran barkiisa oo keenis wixii dhow wata haddana saasay tahay oo kiyali xataa magnification asology ma awoodin arkan. marka waxaa sameynayna waxaas oo aqrinaa, waxaa sameynayna elimination oo sameynayna iftiin ku shidayna si uu nadiif u noqdo. iftiinkaas ama kor kaga shid ama warqada hoose kaga dhigno waa elimination, good elimination. la waxa waay reading stand, waxyaabaha wax lagu aqriyo standing ah inaa siino. sidoo board marker inaa ku caawino, sidoo large printer na siino, high contrast material na siino iyo typoscope. intaa waxaa ugu muhiimsan good illumination kow. la waxaa kaloo ugu muhiimsan large printer, sidoo kale high contrast material iyo typoscope. intaas nooca ugu muhiimsan markii laga hadlayo non optical low vision ideas. nooca ugu dambeeya oo saddexaad waxaa loo yaqaanaa electronic low vision ideas. waxaa kamid ah marka electronic waa waxyaabaha electric, waxyaabaha korontada ku shaqeeya waa. waxaa ugu horeeya CCTV oo ah closed circuit television. CCTV-ga waxyaabo badan oo ka qayb qaata oo muhiim u yahay. wuxuu muhiim u yahay adjustment, wuxuu u yahay magnification, sidoo kale contrast controlka aad ayuu ugu fiican yahay oo waxyaabaha qofka contrastiga iftiinka iyo controlkiisa, maadaama waxaan electronic u yahay elimination controlka aad ugu fiican. sidoo kale self inuu kusoo polarity-ga, waxaan spacekan oo polarity-giisa aad ayuu u fiican yahay. marka kaloo nooca labaad laga hadlaa sigar waxaa waay portable video magnification. waxyaabahan oo buwaagta iyo waxyaabahaas asa waxaa jira magnification video ah, digital waay. sidoo kale adjustment zoom aa loo adeegsadaa. screening nooca saddexaad waxaa loo yaqaana screen reader software. screen reader software waxaa kamid ah text to the speech, sidoo kale screen qofka inuu wax ku qoro, screenka inuu text ahaan qoraal ahaan u isticmaalo to speech, inuu ku hadlo oo u hadlo qofka. screen magnification intaas inuu isticmaalo. si guud magnification-iska kasoo hadalnay oo optical ideas-ka, distance iyo nearka devices-ka. inta badan markii laga hadlayo nearka waxaa la isticmaalaa magnification. distance markii laga hadlayo waxaa la isticmaalaa muhiim waay telescope aa la isticmaalaa. magnification type-ka laba nooca u kala qaadana, distance and near. nearka marka waa RSF iyo RDM. labada waa kasoo hadalnay, waa relative distance magnification iyo relative size magnification. waa idin kala gelina waxyar codkii hargabeyra inuu soo dareemeen. sidoo kale angular magnification waa distance ideas-ka nooca aan kasoo hadlayna hore. walking distance-ga markii laga hadlaa nearka waa short aad u yaryahay. walking distance-ga loo isticmaalo short waxyaabaa dhow, halka kaas waxaa loo isticmaalaa distance-ga oo longa loo isticmaalo telescope-ka. sidoo kale fieldigiisa wild waa near vision markii laga hadlayo. markii distance laga hadlayo narrow waa aad u yaryahay.
And waxaa kaloo jira monocular magnification. Si good, monocular magnification waa magnification hal il ah. Used waxaa loo adeegsadaa only one eye loo adeegsadaa. Used waxaa loo adeegsadaa one eye is better. Hal il markii aad u fiican tahay loo adeegsadaa. Sidoo kale unilateral distance loo adeegsadaa. Distance is Bortis test loo adeegsadaa. Distance monocular distance magnification-ka waxaa ugu deviceska ka bilaabana. Devices name-ka intaana nooc ayaa jira. Waxaa jira monocular telescope, Clarion telescope, Keplerian telescope. Sidoo kale waxaa kaloo jira handheld monocular telescope. Sidoo kale spectral mounted monocular telescope. Intaasoo nooc jira. Use waxaa loo adeegsadaa reading-ka loo adeegsadaa, watching TV loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaa loo adeegsadaa seeing buska waxyaabahaas dhan loo isticmaalaa. This is telescope for use for distance. Sidoo kale magnification usually is around 2 times ilaa 8 ayuu noqonaa. Monocular near magnification waxaa ka hadlaynaa marka hand reading, stand reading, sidoo kale high plus spectral, sidoo kale monocular reading, television. intaas aan isticmaalayna. Used waxaa adeegsadaa marka reading bookska, mobile and writing brace. intaas baa loo isticmaalaa. Binocular if waxaa leeyahay both are used waxaa isticmaalayna to better so arko stereopsis or depth prescription kiisa. Sidoo kale better comfortable inuu yahay. Sidoo kale high weight kiisa inuu yahay. For the high plus lensiga other prescription binocularity but waxaa leeyahay high broad reduce convergence of activity. Monocular and binocular si good sameyna markii laga hadlayo. Wide ahaan markii laga hadlayo light iyo heavy culeyska markii laga hadlayo weightkiisa height iyo weave waay. Light waa aad khafiif yahay, kana waxaa heavy waay. Costigiisa waxaa less waay, ka more waay. Depth prescriptionkiisa reduce waa better waay. Sidoo kale common use waxaa loo isticmaalaa sports, kan waxaa loo isticmaalaa sporting ayaa loo isticmaalaa waxyaabaha neerka oo aragga dhow oo monocular distance aqrinta waxyaabahaas kana waxaa loo isticmaalaa TV and classroom waxyaabaha aragga fog oo TV-ga waxyaabahaas loo isticmaalaa. Magnification si good marka laga hadlayo magnificationiska waxaa jira marka intaana nooc magnification jira. Markii oo totally waxaa loo kala qaadaa near and distance magnification, relative size magnification RSF, sidoo kale waxaa kaloo jira distance relative size magnification, sidoo kale waxaa kaloo jira angular magnification for telescope and Keplerian. sidoo kale waxaa kaloo jiro magnification electronic magnification CCTV. intaana nooc oo types of magnification jira. markii laga hadlayo relative size waxyaaba markii sizekiisa laga hadlayo magnification sizeka waxaa waaye large printer iyo large object labadaas mid inuu leeyahay. markii laga hadlayo relative distance magnification markii laga hadlayo laba mid waaye move the object close inuu wixii objectigiisa loo dhawaado ama reading at short distance oo yar reading ayna loo isticmaalo. Angular magnification AM waxaa telescope hadduu noqon lahaa Keplerian intaas ayuu noqonaa angular magnification. Electronic deviceska waa CCTV, video magnifier iyo digital magnifier. Near magnification deviceska waxyaabaha aragga fog magnification deviceska waa high plus spectral, sidoo kale half eye prescription, hand magnification, scan magnification, dome magnification, bar magnifier, sidoo kale iyo telemicroscope. intaas nooc waa near magnification devices. Distancega waxaa waaye monocular magnification telescope, binocular telescope, spectral mounting telescope, sidoo kale optical magnification typekiisa wuxuu noqonaa linear magnification, angular magnification oo kasoo sheegay telescope Keplerian, sidoo kale EVP oo ah equivalent viewing power.
intaas waa optical magnification format. Waad kaga mahadcelinaa. Markii laga hadlayo magnificationska optical, non optical iyo electronic deviceska si guud muhiim waa anagoo u kala qaadayno distance iyo near. Sidoo kale anagoo u kala qaadayno magnification type-ka oo magnification case distance-ga iyo near-ka, anagoo u kala qaadayno short and distance near-ka, anagoo u kala qaadayno short and long, anagoo sidoo kale u kala qaadayno monocular and binocular. intaas muhiim ah. Waxaan rajeynaa si wax fahantaan. wixii su'aalo dhanka comment inoogu reeb. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.